tuulo waxa maamuli jiray boqor iyo boqorad. Boqorka iyo boqoradaasi dadku aad ayay u jeclaayeen, wayna soo dhaweyn jireen marka ay waddada marayaan. Yadaya iyo inantooda yarba aad ayay u soo dhaweyn jireen. Maalin maalmaha ka mid ah, boqorka iyo askartiisa oo ugaadh tagtay waxay arkeen deero. Deeradii ayuu boqorkii eryaday. Deeradiiba waxay ka hoos gashay markiiba mastuulaagii baa ku toosay. Faraskiina wuu cabsado, boqorkii buu tuuray. Maxaa ku keenay meesha? Maxaanad ka qabanaysaa? Maan ogeyn inaad joogtid, laakiin mar dambe iman maayo ee i sii daa. Mar dambe soo noqon maayo. Wuu tegay isla markiiba waddadii oo tii la mid ah ayuu ku soo noqday. Waan awoodi kari waayay meel aan ka baxo, ee waxaad i tustaa meel aan ka baxo. Haddaad i tustid waxaan ku siinayaa dahab iyo lacag. Ma rabo anigu dahab iyo lacag, laakiin waxaad ii keentaa qof aan saaxiib la noqdo oo ehelkaaga ah. Way ku adag tahay in aan keeno qof aan waayahay. Waan ogolaanayaa inantayda ayaan kuu keenaya, laakiin imika way yar tahay. Markay weynaato ayaan kuu keeni doonaa. Ha iloobin, haddaba waan sugayaa. Haye, i tus meel aan ka baxo. Waxaad ka baxdaa jihada xagga ka soo eegaysa. Halkaa ayaa aamin badane. Boqorkiina wuu iska iloobay ballanqaadkuu u sameeyay mastuulaagii. Boqorkii iyo boqor kale ayaa saaxiibay, carruurtoodiina waxay noqdeen saaxiibo. Muddo kadib, labadii boqoradu ay dhaleen ayaa weynaaday. Maalintaana waxa ay ahayd maalintii ay inantu dhalatay. Wuxuuna u keenay boqorkii hore inankiisu ubax. Qasrigana waxaa loogu dhajiyay decoration aad u qurux badan oo dadka soo jiidanaya, waayo waxay ahayd maalintaasi maalintii ay iyadu dhalatay. Askartuna waxay ka shaqaynayaan qurxinta qasriga. Dadka tuuladana waa loo sheegay inay maanta tahay maalintii dhalashadeeda. Meel baa lagu ururiyay.